بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan ayaan fadhiyaa dabcan annaga qorax waxaan idin sheegay inay aragti naga dhaxayso kullay maadaama jawiga uu cajiib yahay halkan aan ku wadaagayna biidnillahi tacaala arrimaha maanta soo kordhay gaar ahaan shalato caalamka hal mar oo sida isu rogay ma la socotaa dhaqaalihii Mareykanka inuu dhulka ku sii socdo ma og tahay shirkadihii ugu waaweynaa ee Mareykanka midda ugu yar inay 100 bilyan wada 100 bilyan ay khasaartay 200 bilyan 100 bilyan 300 bilyan المهم سيداسي u socota تقريبا waxa lagu qiyaasayaa waa 3 trillion dollars in shalato ilaa imaantadan sida dhulkay u galeen ayadoo sidaa tahay Trump wuxuu soo bandhigay kulay ma arkaysan dabcan laakiin waan dulmarayaa kaarkii golden card ka ahaa kaarkii dahabiga ah arintan waan ka hadlaynaa biidnillahi tacaala Karim Khan waa taqaanaan dabcan tarin ay halkaas maraya wana dhax gali doonaa laakiin waxa macna malaha insha Allah tacaala in ka soo size aynu u soo marin المهم كريم خان ninkii ku soo oogay Netanyahu dacwada oo Netanyahu uu goondiyay yiri waxaan arki doonaa adoo dharkaada ka cararaya tan kugu dhigno oo hadeertan ay haysato UN-ka arintii soo faragashtay maxaa dabcan xaaladiisa ay tahay halkee hadda la maraya Karim Khan waan insha Allah taala isdul taageena waxaan ka hadlaynaa sidaas oo kale ciidamada Israa'iil oo si toos ah u sheeganaya gudaha Suuriya soo galnay waan ku jirnaa kama baxayno si gaar ahaan Jawlani madaxweynaha Suuriya Ahmed Sharac ay ula hadlayaan arintan waan ka hadlaynaa biidnillahi tacaala aan soo ku bilowno xuutiyiinta iyo Mareykanka oo qirtay nacam drone naga soo rideen ma hal drone naga soo rideen drone oo kala duwan ama diyaaradahaasi kaligood isduuliya oo kala duwan ay naga soo rideen فادت وسائل اعلام تابعه للحوثيين بان غارات امريكيه استهدفت منطقه كهلان شرق مدينه صعده شمال غربيه اليمن وفي وقت سابق قالت شبكه فوكس نيوز نقلا عن مصادر ان جماعه انصار الله الحوثيين اسقطوا طائره مسيره امريكيه اخرى من نوع MQ المهم xuutiyiinta waxay soo rideen diyaarado Mareykanka yaa sheegay koodii xuutiyiinta sheegay laakiin Mareykanka waxay markii dambe qireen haddana markay soo rideen drone kale macnaheedu waa maxay markay soo rideen horay drone soo rideen markale drone soo rideen المهم xuutiyiinta waxay ku tilmaamayaan drone-kii 16aad inay tahay midan ugu dambeysay laakiin dhinaca kale duqeyn ayaa Yemen wali la beegsanaya oo Mareykanka ula beegsanaya arintaas cajiibka ah waxay tahay oo habay yaraatee loo la yahay wax lagu fasiro in xuutiyiinta intan ay wali soo taagan yihiin Mareykankan u bacbacdigayaan oo wali la baabi'inin sawaariikhda meesha ay ka soo tuuraan Mareykanka been maalin ugu wuxuu sheegaa waxaan baabi'inay meelaha sawaariikhda laga soo tuuro waxaan baabi'inay raadaaro waxaan baabi'inay maraakiibta meesha ay kala soconayeen waxaan baabi'inay sidaas wixii la midka ay sheegaan dhinaca kale xuutiyiinta waa kaasaun waa taade ugu dambeyn ay soo bandhigeen tuneeladooda wixii la midka halkaasna waa soconaynaa Israa'iil wasiirka difaaca ama wasiirka dagaalka inta waa lagu tilmaamay wasiirka dagaalka xataa dhahan المهم si toos waa uu goondiyay madaxweynaha Suuriya laakiin si cad cadeey markuu wuxuu leeyahay hadeertan uma ogolaanayno عفوا إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول إلى سوريا المهم gacanta iga dhacday laakiin aan arintan ka hadalna ayadan wuxuu si toos u leeyahay Turkiga uma rabno inay soo gasho gudaha Suuriya waa sida hadda ugu tilmaamay hadda sida cadow ay nagu yihiin sida darteeda waxaan oga digaynaa Jawlani haddii ay arinta dhacdo oo ogolaado tan ku dhigna ogaado yaani si kale haddaan kugu dhigo waa dawlad kale intay iska dhax gashay iska duqayso madaxweynaheeda u goondinaysa hadda ogow caalamka aan ku noolnahay maanta waa awooddaada ma ahan Soomahan awood kuma haysatid waa kaas sidaas lagu bahdilayaa Suuriya maxay haysaa wax ay samayn karto ama ay hayso malaha hadday dhahdo waa iswaalaynaa waxa laga yaabaa hogaamiyaashooda madaxdan kala in hal mar laga takhaluso hadda waa sida ugu wax ay sameyn karaan oo ma ahan bal maxay kula tahay sameyn karaan hadday iswaalaan ku yiri boqolkiiba boqol ayagana way og yihiin dawladaha dariska way og yihiin sidaas oo kale waxay u tari karaan malahan hadda Urdun oo kale waxay tiri waan ka xunnahay arinta macnaha Israa'iil ay ku sameynayso Suuriya qadar way cambaaraysay Urdun maxay u tari kartaa Suuriya Gaza oo sida loo cunaayo ay wax u tari waayeen ma Suuriya wax u tari karaan waa dabcan maya marka maxay kula tahay maxay sameyn karaan hadal waxaan ahayn ma hayaan horta sidaas oo kale Turkiga ma adaama si toos ah Israa'iil ugu goondinaysa ay leedahay carar isku imow oo meeshuu Turkiga ku soo aadan yahay ay duqeynaysa Israa'iil Turkiga naftirkiisa maxay kula tahay oo ka qaban kara arintaasi macnaha kulay ilaa hadirtan asaga ma in ku dhufan waxba laakiin way la mid tahay xaraadii lagu siiyay oo u soo socotay oo aad xaarxaaratay oo hadii lagu sii habeeyay lagu diyaariyay hadii laga duqeeyo yaa loo socdaa
arrintaasi waa taa dhinaca kale Kariim Khan aanu imaano Kariim Khan waxyaalaha cajiibka waxay tahay wuxuu Netanyahu ku soo ogay dabcan sidaad ogeedeen oo maxkamadda dhan isku raacday Netanyahu inuu yahay khaa'in dambi dagaal galay oo dad xasuuqay dhiig yacab ah kada samaahan markay arrintaa ay soo baxday waliba intayna soo bixin afwan intayna soo bixin Kariim Khan waa loo digay waxa u digay Israa'iil goow waxa u digay Mareykanka digniintiisa u socotay way ku adkaysteen way soo saareen wuxuu soo istaagay Kariim Khan idaacada wuxuu yiri wali handaday waxa la yiri waxaan kugu sameyn doonaa kaarar ayaan ka gubi doonaa waxa la igu yiri baashan anaga nooguma tala galin hadaan nahay Israa'iil iyo Mareykan iyo Cadaan iyo Afrikaanka loogu tala galay waa to adiga almuhim afka furtay oo qayliyay caalamku waa to wada kacday ilaa wixii hoos loo sameyn jiray ee la ogaa ay banaan keen soo maahan almuhim waxa ku xigtay in ninkii la yiri intaasoo dumar oo kufsaday video aab laga hayaaba waa sida ogow intaasoo dumar ayuu qaarkooda macnaha yani tataabta eegoon raalli ka ahayn qaarkood sidaan u sameeyay ilaan waaba qorshe dabcan diyaarsanoo rakaatada qofka lagu heesta iyo familkiisa meel hebel la dejinayaa iyo maxaan ku dhahay xafiiska markuu ka shaqeey gabdhaha loo keenaya xafiiska la shaqeynaya ilaan waaba hool ay sirdoonka sameeyaan dabcan in badan Soomaaliyeed way taqaanaa wayna yani ka hadlaan laakiin ninkii Kariim Khan ah horta arrintii ku dhacday waxa hadda UN ka soo galeen marka oo baaridda ayagana ay markaa ka qayb qaadanayaan kamid ah arrintan lagu eedeeyay ee waliba hal ma ahan laba ma ahan dumar kala duwan oo badan ay waxay leeyahay anigana yani wuxuu ugu sameeyay oo kale UN-ka waxay leeyahay marka arrintaas arrin siyaasadda inay tahay oo ninkan la rabo in macnaha dacwadii uu ka laabto inay tahay iyo arrin run inay tahay meel dabeela jooga xogaa cafan almuhim iyo arrin run inay tahay ayaan baarid dabcan aan ku bilownay waxa noo cadaatay leeyihiin kiisaska qaarkooda nacam inay wax ka jiraan yani UN-ka qaar kamid ah ayaa xataa waxay qirayaan Kariim Khan arrin uu sameeyay qalada lagu haystaa dacwadii maxaa dhacaya hadda ninkii dacwada sameeyay haddii sidaan loogu dhago wuxuu ku qasbanaan doonaa ama laga yaabo yani in adiga sandullo hadday noqotay haddii si ahaataba yani in adiga ma ku dadta inay ka laaban doonaan yani dadka qaarkiis way leeyihiin haddii handadaad la geliyo oo haddii ninkan xabsiya lagu xiraaya adigaaba laga hormarinayo Netanyahu kada hadday dhacdo waxa laga yaabaa leeyahay inay ka laabtaan haddana waxa la leeyahay la sharciyada sidaa ma ahan lagama laaban karo ilaa wax jabiye la keena ma ahane marka taana waa taa Faransiiska oo soo jeedinaya in Yurub ay ka laabato dhammaan mashaariicdii maalgelineed ee Mareykanka ay u sameeynayay ama ay hadda rabtay inay bilowdo inay dhammaan hakiso macnaha Mareykanka taas lagu xumaynayo waliba asagoo dhahaya Mareykanka saaxiibaan ahayn garabkeena oo ka baxay woona khiyaanay sida darteeda uma khalmo hantida inta la eg ee maalgelinta ah oo aan ku sii wadnay ama ahayd inaan sii howlgelin hadirtan in aan sii wadno macquul ma ahan aqli galna ma ahan sidaas oo leeyahay dabcan arrintaasi Jarmalku uu la qabaa waan arki doonaa meey arrinta aado Trump kan waa iska dulmareena on kaliya waa golden card kaarkii dahabiga ahaa 5 milyan dabcan ayaa lagu iibsanayaa marka Trump shalay uu soo saaray asagoo tusaaya kulay ma arkaysan laakiin thumbnail ka arki doontaa insha Allah taala asagoo saadhaya waa kana kaarkii qof walba iibsan kara 5 milyan hadaad haysato 2 isbuuc gudahooda miyaa misal isbuuc gudahooda ku soo bixi doona kada ugu dambeyn dhaqaalaha Mareykanka aanu imaano iyo arrin aan doonayo in walaalaha hadaba inta soo gaartay aan macnaha dabcan kuma dhahayo sameey laakiin caalamka maanta waxa hadda la jooga xilligii laga faa'iideysan lahaa qofka investment iyo sida Nvidia iyo Microsoft iyo Alphabet iyo almuhim way tira badan yihiin suuqyadaasi qof alla qofkii maal gashanayay ama uu wax yar ka yaqaanay ama koorsooyinkeena qaatay ila koorsada ku socodsiinaysa oo ku tusaysa sida maal gashanaysa iyo wixii la midka ah qof alla qofkii arrinta daneynaya xilligii aad ka goos qabsan lahayd waa la joogaa dabcan kugulama talinayo sameey kuma dhahayo laakiin kollay hadda suuqii Mareykanka dhulka ku jira boqolkiiba boqol waa xilliga ay dadka xogaa haysta ay ka faa'iideysan karaan maxaa dhacay mas'ala wax u dhaceen Mareykanka waa tow hadda dawladda caalamka oo dhan oo kaga yaabsaday canshuur asaga wuxuu isdahay dabcan arrintan adiga wayna tahay dabcan waa laga yaabaa xilliyada fog ee soo socda Mareykanka in arrinta dan u tahay waana tahay laakiin maxaa dhacay 3 trilyan ayaa Mareykanka suuqiisa shalay u khasaaray ilaa maantadan shalay 2.5 trilyan ay ahayd laakiin maanta 500 bilyan ay hadda lagu darayaa marka taasoo iska total ka dhigaysa 3 trilyan oo dollars ayuu Mareykanka suuqiisa khasaaray arrintan shirkado badan sida hadda Nvidia aan sheegayno oo kale Meta oo kale Alphabet oo kale Amazon oo kale yani Apple oo kale Tesla almuhim shirkadii ugu waaweynaa ama guud ahaan
S&P 500 iyo Nasdaq iyo dhammaan dhulkay galeen way qasaareen qasaaraha de ma ahan mid la leeyahay hadirtaan soo qabsan yani wali way sii socdaan hoos u socdaan marka Mareykanka intuu isahay xogaa khatar iska dhigo macnaha sida sameey u dhinci kale u rogmatay asay bahash hadda maxaan ku dhahay ku dhacday intaasi waa intii ugu dambeysay arinta hadaan ogeyn ogow gaar ahaan xagga maalgelinta iyo wixii la midka ah koorsooyinka arinta xataa ka hadlaaya intaas aan ku soo koobaya wixii kale soo kordha videoga dambe insha Allah taala haddana banaankan ayaan